بسم الله الرحمن الرحيم maanta ama 4 bisha abriil 2020 waxay ku beegan tahay sanad guuradii sagaalaad furistii telefishanka qaranka Soomaaliyeed Somali National TV oo sagaal jirsaday markii dib loo yagleelay burbur kadib telefishanka qaranka oo runtii telefishanka ugu weyn telefishanada hadda dalka ka jira masaafooyinka ugu badan laga dhageysto muddada sagaalka sano wuxuu sameeyay horumar baaxad leh aad iyo aad u weyn sanadkan 2020 waxaa lagu soo kordhiyay channel labaad oo Somali National TV 2 la dhaho oo isaguna hadda shaqo adag haya labada channel ee maanta iska gudub shaqeynaya oo runtii leh shaqaale aad u badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo gobolada dalka oo dhan jooga waxay qabtaan runtii oo shacabka Soomaaliyeed u qabtaan iyo qaranka Soomaaliyeed shaqo aad iyo aad u fiican ugu horeyn waxaan jecelahay inaan u hambalyeeyo agaasimaha iyo shaqaalaha Somali National TV Channel 1 iyo Channel 2 labadaba guud ahaan maamulka iyo agaasimaha iyo agaasimayaasha warbaahinta qaranka oo runtii si walba u gacan siiya shaqada telefishanku hayo waxaan rajaynaynaa sanadkan 2020 oo ku beegan sanad aad iyo aad muhiim ummadda Soomaaliyeed ugu horeyn sanad dawladda nabad iyo nolol ay bandhigayso waxqabadkii ugu ballaadhnaa ee la soo qorsheeyay ee la soo bilaabay muddadii ay shaqeynaysay waxqabadkii ugu badnaa muujinaysa xarumihii ugu waaweynaa ee dalka loo dhisay isxilqaan lagu dhisay gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho intaba horumar weyn dalka uu ka jiro doorasho ay jirto oo sanad doorasho dabayaaqadiisa ay ku beegan tahay 60 guuradii waqtigii xornimada ay Soomaaliya ka qaadatay gumaystayaashii ku beegan tahay 20 guurada markii dawladnimada Soomaaliya dib loogu soo yeegalay tuulada Carte sanad ay shaqo badan u taalo waa TV-ga qaranka shaqaaluhuna si fiican ugu diyaarsan yihiin qorshayaal loo sameeyay dhammaan waxyaalaha aan sheegay markaas shaqada aanu hayno qaranka Soomaaliyeed aanu laba jibaari doono hambalyo guud ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamul iyo shaqaale intaba hambalyo shaqaalaha iyo maamulka TV-ga qaranka xuskan sanad guurada sagaalaad ee ay u dabaaldegayaan 4 bisha abriil 2020 waa mahadsantahay